السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي وحنا جيرانka diinta macaankeeda aad iyo aad baan islaami aniga Abdiraxmaan waxaan leeyahay dhamaantood mahadsantiin runtii waa la iswaayay maasha Allah Ramadaan oo soo galay waxaan ognahay runtii haddii Ramadaan soo galay inay runtii fiican tahay qof walba runtii uu ka soo tago caalamkii waxyaalaha ka runtii waqti badan uu ku bixiyo naftiisa iyo cibaadadiisa runtii naftiisa ilaahay xaqiisa ugu xiri lahaa marka runtii aad iyo aad baan isku weyn doonaa biidnillah inta Ramadaanka la soo inta Ramadaanka lagu jiro insha Allah laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa asbuucan dhamaadkiisana waqti fiican oo free aan heli doono runtii wala aad u mashquulsan dhamaan mar walba aniga waxaan wax soo duubay waxay u baahan tahay maalmaha fasaxa ah maalmaha fasaxna runtii aad iyo aad u mashquulay laakiin insha Allah labada asbuuc soo socota free baan heli doonaa biidnillah markaas aan rajeynaa biidnillah in wax yar ku saabsan Ramadaankiina runtii inaan soo gelin doono page-keena ama YouTube-keena diinta macaankeeda biidnillah laakiin saan naga raab noqdo insha Allah hadii la iswaayo waana runtii wax fiican waay markay bisha Ramadaan soo gasho waxa si fiican in lagu waayo in adeega masaajidka iyo khayrka iyo cibaado iyo marka guri joogtiin wax barasho iyo diin iyo quraan dhageys iyo tafsiir iyo in adiga ku mashquulshaan in adiga runtii ku mashquulshaan naftaada wax ka fiican ma jirto marka runtii hadii aad isku coodara biidnillah laakiin hadana waa runtii aad iyo aad baan jecel wax runtii soo faa'iido waxaan jecelahay inaan idin la wadaago marka insha Allah waxaan rajeynayaa biidnillah inaan maalmaha soo socdo insha Allah wax soo gelin doono ku saabsan Ramadaan insha Allah diilahayd inta kadib waxaan rajecelahay ma sha Allah maanta waxa jooga masaajidkan aan joogaa runtii meel baan socdo meeshana runtii 2 saac ka hor baan imaaday marka runtii arrin baa markii yar runtii aasiri waa sameysay oo yar fiican baa si walaalahana soo xasuusay runtii wallahi marka meel aan tago meeshaas markaan tago runtiina xoogaa waqti ka hor aan tago waqti laga reebo waqti ka hor aan tago maxaa sameeyaa markaas kale maxaa yani dadka qaar wax laga inuu ku adkaato maxaa sameeyaa anigu xagga ka soo tago in fadlan ii sameeyo wixii la mid ah camal oo kale ama waxa laga yaabaa bas sugaysa mise train baa qaadanaysa mise qof baa lan balansan whatever waxa doonta ahaato laakiin saacada kor baa meesha timaad markaas kadib maxaa sameeysaa maxaa waqtiga ku dhumeysaa dadka qaar maxaa magaalo iska wareegay dadka qaar maqaaxida fariistaan what are real and wax inta baan jeclaa wallahi waxa waay mar walba waqti baa ii saaro ama waxaan igu dhacaan markaas waqti aan haysto ama waxaan sugayo waxaa raadiyaa masaajidka meeshaas igu dhow igu yaala and that's really aad iyo aad wallahi uga faa'iiday maxaa yeelay wallahi runtii waxaan ka bartay dad badan aan weliga aan baran lahayn haddaan masaajidka imaan lahayn waa ahlu khayr oo runtii siiba khaasatan haddaan iska arko qof weyn oo oday ah inta u tago hadda adeer macaan mise adeer baa iska dhahaa nin dhalinyaro baa iska maxaa runtii ilo talin lahayd markaas runtii wuxuu isiiya talooyin runtii aad iyo aad u macaan bal wallahi dadka qaar maanta ilaah darti isku jecelnahay waxaan isku baranay sidaas aan isku baranay maalin baa masaajidka بعد العصر بهد أضير وذا أسكار كجروان ما شاء الله حق أسكفر ما كعصر كليتي وأتجا حتى سوق اسكم ما يعوان نقولنا عبد الرحمن بصل على النص وكذا مركرنتي بو محاضري والله مر بهذا كده مركم مقالة ده عسان تجو متأكد كان تجو سبحان الله يعني وحقبت إلى سنة خاني معاني توصل وحكبنا وأسكو سوبنا تذكر حتى من الله يعمل aan waxa isku baranay maalmaha kamid ah masaajidka soo galay anigu wax sugaya xaasil masaajidka waqti ku qaada kadibna xaggaas aan isku baranay subxaanallah marka wallahi waxaan ka wada waxa waaye يعني dadka aan maanta isku jecelna waxa kamida qof aan ana maalin masaajid waqti micnay ku qaadanayo oo bas wax aan sugin wix la mid ah aan soo galay kadibna rabbi adeerkii ilaahay soo xasuusi baas isku barana marka wallahi waxa nafteeda iyo taada runtii dardaaran ku siinaya marba runtii xoogaa waqti badan inoo soo haro ama bas aan sugina mise tareen mise qof aan sugino masaajidka meesha raadi masaajidka meesha gal quraanku akhriso yani haddaad aragti xalaaqo yar meel wax lagu akhrinayo la fariiso haddaad aragti qof ka weyn runtii waqti haya adeer macaan wax yar mi maxaadareyn kartaa mis wax yar mi waanin kartaa qof dhalinyaro baa hay maxaa runtii waan igu siileed arriyal marka wallahi أدي أرنت سمع أنت والله ضد وكبر نسام هذا لرنتي قيمة بان رنتي قف كاس إله وكاسينا يا مساجد كإله وصوب وقتي الله برجع عن مساجد كل سلامتي إله جوري سات مادي أنا أرنت عشيف كم هاد والله مرباني عادي أنا بأكاس عن كسر قلنا مساجد كم كدمنا عن كبح إنه إله وح إنه ديارية أنت الله ديار دتك متخنا مرتين مركو كوي من سو أنت ما الله دياري وحجاير وفاكيس أو خضاري عبتين سكوتة تاسو إله مرباني عادي مساجد
masaajidka aan soo galno ilaahay inoo diyaariya nuzulan min ghafuurin raxiim subxaana allah. marka si marka ay inoogu badato cuntada martiqaadka ilaahay inoogu diyaariyo jannadiisa, soo mar walba aan jaanis u helin inaan masaajidka ilaahay imaan karno fadlan imaano. marka boontiga wuxuu ahaa haddii waqti been heshid kadibna aad la-da maxaa ku samaysaa meel cusubna aad joogtid, masaajidka ilaahay tag, 2 ragcad tuko, quraan iska akhriso, qof ahlu khayra baro. marka runtii arrintaas jecel sida runtii aan nafteeda iyo taada runtii aad ku dhiirigeliyo aad iyo aad amaasaytii maanta runtii masaajidka yarka qurux badan baa jooga maasha allah so beautiful. markaas dumarkan xaggaas waa keliga waa hadda waa 6 subaxnimo aroornimo meel baa runtii imaaday. markaas insha allah waxaan soo gelin doonaa insha allah loo maxaan ku dhahaa muuqaal 3 muuqaal ku saabsan ramadaankan insha allah waa idin soo wadaa hadduu ilaahay idmo. marka waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin jazaakumullahu khayran isku soo duceyno dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. ilaahina ha naga dhigo kuwii bisha ramadaan ehelkeeda ahaa oo khayrkeeda iyo fadligeeda helay. ilaah dhammaantaan naga dhigo. waa mahadsantihiin.